الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد islaamku wuxuu nagu guubaabiyey zawaajka iyo guurka waxa uuna ka dhigay cibaado qofka muslimkaa uu ugu dhowaaday rabbigii subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo ilaahay nooga dhigay wax aan danahayna ku gudano waxyaaba nafsadeenna ku jira ayaa jira oo watar ahoo aan ku gudanayna guurka annagoo weliba ugu dhowaanayna ilaahay qofkana ilaahay uu ka ajir siinayo subxaanahu wa tacaala sidaa darteed ayaa xadiid wuxuu tilmaamay qof allaala qofkii doonaya inuu ilaahay la kulmo طaahiran mutahiran asagoo ah falyatasawaj alxaraa'ir ha guursado weliba xaraa'irta dumarka ah ha guursado ee xorta ah su-aasha aan doonaya inaan caawa dhexdiina ku soo tuuro jawaabna aan idinka sugi doonaa waxay tahay waa tee gabadha uu guursanayo wiilka muslimka ah gabadha la rabo in xuquuqaadka ay ka soo baxdo ee wiilka muslimkaa la doonaya inuu guursado waa tee ghaayada zawaajka iyo guurka ayuha alikhwa ma aha in la helo ama la soo saaro jiil hagaajin kara wax karinta tacaamka sharaabka alaabta waxyaabaha adduunka loo baahan yahay laakiin ghaayada guurku wuxuu yahay in la soo saaro oo la helo jiil taxqiijinaya oo dhabnimo ugu soconaya risaalada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay kaalmaynayaan hooyo iyo aabe tarbiyo wanaagsan ay ku kaalmaynayaan fikirkiisa ay ka dhigayaan fikir saliim ah qalbi shariif ah suluug aad iyo aad u qiimo badan sidaa darteed ghaayada qofka muslimka ah looga dalbo inuu u doorto zawjo saalixa ah oo garanaysa rabbigeed oo adeecaysa siri iyo si muuqatii si qarsoon labadaba ilaa usrada ay noqoto usra saciida ah oo liibaantay qoyskaa uu noqdo qoys saciid ah oo ku xiran rabbigeed garanaysa ama garanaya xaqa rabbi uu ku leeyahay xuquuqaadka addoommadu ay leeyihiin sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala asagoo nooga sheekaynaya nebi zakariya oo guursaday laakiin carruurtii ay ka soo daaheen asagoo rabbi baryaya wuxuu yidhi rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru alwaarihiin allow keligay ha iga tegin waayo inta wax dhaxasha adigaa u khayr badan ani io xaaskayga keliya ha naga tegin ilaahayow rabbiyow awlaadna sii waayo guriga haddii hooya iyo aabba keliya ay joogaan ciyaalna ay ka maqan yihiin weli raaxadii sidii loogu talagalay ma jirto ayadoo taa uu ka duulayo ayuu zakariya rabbi baryey oo yidhi rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru alwaarihiin inta wax dhaxasha adaa u khayr badan kollay owlaadaad isiisa adaa la noqonaya owlaadda aan dhala adigaa iskale oo qaadanaya adigaa isiiye adaana la noqonaya ilaahayow ilaah muxuu yidhi faistajabnaa lahu waanu ka ajiibnay wawahabnaa lahu yaxyaa wiil yaxya la dhacan siinay wa aslaxnaa lahu zawjah sawjadiisiina waan u wanaajinay sawjadiisii waa loo wanaajiyey see loogu wanaajiyey waxaa loogu wanaajiyey xuquuqaadkii ninkeedii ku lahaa ayaa la garansiiyey wayna ka soo baxday jaarka ayaynan ku qaylin jirin carab dheeri iyo cod dheer ma lahayn wa aslaxnaa lahu zawja gabdhaha maanta gadaal baan ka arki doonaaye ninka intuusan hadlin bay hadlaysaa subxaanaka yaa ilaahay dumarka marka la dooranayo oo la ikhtaaranayo oo la leeyahay sawjo saalixad ah ha la doorto wax sahlan ma aha waxyaabaha rabbi noo tilmaamaya wax sahlan ma aha saa darteed buu ilaah yidhi wa aslaxnaa lahu zawja maxay sameeyeen innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat yaa iska dhalay hooye aabbawan wanaagsan
yaa iska dhalay hooyo iyo aabbe ilaah subxaana wa tacaala ku xiran. yaa yaxye iska dhalay hooyo iyo aabbe xuquuqaadka midkoodka kala bixiyey. hadday naagtu xadgudubto odaygu waxay leedahay raalli ahoo waan qaldamaye. haddii asagu qaldamo raalli ahoo walaal waan qaldamaye. waa sida guryaha lagu nool yahay. waa sida allah ugu talagalay subxaana wa tacaala. naama anagaad nagu hadal celinaysaa, naa doofaariya ma anagaasaana dhahaysaa, war waxyaho subxaanaka yaa rabbi. ma aha waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay usrada. goormee noogu dambaysay gabar raaligelinaysa ninkeeda? maba la yaqaanba, soo maaha. goormee noogu dambaysay wiil raaligeliya naagtiisa? waa xaalad dhib badan. sidaa darteed baa walaalayaal xuquuqa sawjeynka ah mar allaala marka ilaahay uu baneeyey ee uu kitaabka ku caddeeyey waxaa loola jeeday in la helo usro mustaqiimo ah, in la helo qoys wanaagsan, in la helo beyt saciid ah oo liibaanay. saa darteed buu ilaahay yidhi maxay sameeyeen? innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat. khayraadkay u degdegayeen. maxay kaloo samaynayeen qoyskaa barakada leh? wayadacuunanaa, wayna baryayeen ragaban wa rahaban wa kaanuu lanaa khaashiciin. annagana waynoo khushuucnaayeen. sidaa darteed walaalayaal doorashada zawaajka aan dhehee ama waxyaabaha gaayada ah ee aan ka doonayna guurku muxuu yahay? ma inaan ku shahwa gudano keliya? ma in aroosna loo dhigo oo xaflado la sameeyo keliya? ma in tv nala ka duuba keliya? ma in mataqaanaa jaraa'idada iyo websaadyada qaarkood baa lagu soo qoraa baryahan ee tahniyad aroos iyo waxyaabo kale? ma intaasaa gaayaheena yahay walaalayaal? ma intaasay ujeeddadeennu tahay? ma intaasaan u kharash garoobaynaa? ma intaasaan qaali hortiisa u fadhiisanaynaa? ma intaasaa xaaladeennu tahay? maya, waxaan doonaynaa inay soo baxaan duriyo saalixa ah oo rukuucaya, oo sujuudaya, oo dukanaya, oo tasbiixsanaya, oo rabbi weynaynaya subxaana wa tacaala. gaayaha aan ula jeedna waa sidaa. guurka ujeeddada aan ka rabna mar allaala markii shahwo gudashada iyo hooyada mataqaana xaaska kuu helinaya, wehelka kuu noqonaysa, dhinacaaga istaagaysa markaan ka bixina kadib waa inaan soo saarnaa jiil, waa inay soo baxaan duriyo, waa inay soo baxaan caruur saalixiin ah. tarkac wa tasjud, rukuucda, sujuudda, tasbiixsata, rabbigood weynaysa subxaana wa tacaala. saas waaye gaayaha guurka. sidaa darteed ayaa cumar ibni khitaab wuxuu oran jiray nafteyda waxaan ku qasbayaa mararka gobol ka mida jimaac, inaan xaaskayga jimaaco. waxaanana ula jeedaa anoo jecel inay soo baxdo nasma, duriyo, naf ilaahay u tasbiixsanaysa subxaana wa tacaala. waan qasbayaa anigoo laga yaaba inaanan doonayn oo hami aanan u lahayn ayaan xaaskayga u tegayaa, yaan xaaskayga jimaacayaa, yaan xaaskayga u yeeranayaa. intaa waxaan ula jeedaa in naf ay ka dhalata meesha, naftaasoo ilaahay u tasbiixsata. cumar ma doonayo, uma aadaya arrintaa owlaad liajli atafaaqur waatakaathur uu ku faantamo, uu mataqaanaa qabiilku ugu faantamo, uu yidhaahdo warhooy waxaan badinayaa qabiilka si aan isaga dhicino qabiil hebel. wuxuu doonayaa oo ujeeddadiisu ay tahay owlaad rukuucda oo sujuudda, ilaahayna u sujuudda subxaanahu wa tacaala. saasuu markaa rabaa. xaaladiisu waa sida, arrintiisaa saa ah. fiiri cibaaduraxmaan markay ilaahay baryayaan subxaana wa tacaala, mar allaala markay doonayaan inay ta'siisaan oo ay dhistaan guryo, rabbanaa haba lanaa min aswaajina. maxaa zawjada looga bilaabay? waa warshad. maxaa zawjada looga bilaabay? ayadaa injaab la imaanaysa, ayadaa wax dhalaysa, ayadaa owlaadda ka farcamayaan. saa darteed baa sawjada laga bilaabay ducada, rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin. waxaan ku indhaqaboobsano, wax aan ku indhaqaboobsano sawjaadkeena iyo carruurteenna nooga hibeey. war xaaskaaga mar allaala markaad u soo gasho ayadoo bashaasho faraxsan, galaas biyo ayadoo wadda, alla maxaa kugu soo dhacay maanta? xaalkaagu sidee buu noqday? war waad soo habsaantay maantee ma dhib baa ku helay? waxyaabo kale ay kugu soo dhowayso. iyo mar allaala marka aad u soo gasho ayadoo gafuurka taagan ka warrama walaalayaal. assalaamu calaykum shib, see tahay shib? nabad baa saaka lagu kala tegey.
nabad iyo baraar iyo bashbash baa lagu kala tegey. qaxwihii iyo shaahii way siisay markuu baxayey. wuxuu ku soo laabtay guriga isagoo isdhahaya si fiican isaga naso, tacabkii iyo daalkii iyo howlihii iyo waxyaabihii ka naso. muxuu nastaaba? shaqada bannaankaa u roon. muxuu nastaaba? salaamu calaykum baa laga qaadi la'yahay. muxuu nastaaba? wax loo haysto iyo wax kale maba jiraba. wax loo haysto iyo wax kale ma jiro. maba leshayba. dadku waa bishardi inay iska warhayaan. shaygu waa shay macquul aha loo baahan yahay. saa darteed baa wiil ama gabar waxay tiri baa la yidhi, hooyaday iyo aabbahay iskama warhayaan. aabbahay wuxuu leeyahay hooyadaa waan dalaaqaya, waan furayaa. hooyana waxay leedahay aabbahaa dhar iima iibinayo. ka warrama walaalayaal. subxaanaka yaa rabbi. aabba wuxuu ku tala jiraa inuu dalaaqo, soo maaha. hooye waxay leedahay beryahan dhar maba ii gaday, waa maxay? maca daalika waa shay loo baahan yahay labada qofood in ay aad iyo aad isaga warhayaan, in xaaladdu ay noqoto xaalad muhiim ah. sidaa darteed zawjiya wax sahlan ma aha. rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin. waxaan ku indhaqaboobsano. gurigii uunsiyaysan buu imaan. waa gabadha saalixadda ah ee qurato acyunkii lagu indhaqaboobsado. wuxuu imaanayaa macawistii oo diyaar ah. wuxuu imaanayaa biyihii oo loo kululeeyey. wuxuu imaanayaa arrimooyin fara badan. qisaa jirta laakiin inay waxba ka jirin macquul ah. waxaa la yidhaahdaa gabadha waxaa lagu yaqaana khaasatan waxay inta badan soo qaataan cali iyo faadima. cali mar allaala markuu albaabka ka soo gelayay bay yidhaahdaan dadka gobolka mid ah. waxay mataqaanaa faadima waxaa u diyaar ah ul iyo waxaa u diyaar ah bay leeyihiin iyo galaas biyo ah. mar allaala marka albaabka sidaa looga furo, in allaala intaan qaldamay intaad maqnayd iga goy ushaan hoowaatanaaya. galaaska biyahana waa loo siinayaa. saasaa markaa la yidhaahdaa. laakiin waa qisaan waxba ka jirin. oo dumarka inta badan, ragga inta badan waxaa loo baahan yahay inay noqdaan rag xilkas ah. dumarkan waxaa loo baahan yahay inay noqdaan dumar la dhaqi karo, lagu indhaqaboobsado. in fara badan oo badan ay mataqaanaa noqon karaan dad waxyaabihii loogu talagalay ka soo baxa. rabbanaa hablanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin wajacalnaa lilmuttaqiina imaaman. saayaa ku ducaysanaya. waxaa ku ducaysanaya ragga guurdoonka ah, ragga guurka raba inay sameeyaan, ragga ayagu raba inay guris aas-aasaan. laakiin lilasaf maalmahan dambe waxaan helaynaa aabbayaal doonaya, waxay u soconayaan inay tahay in maal la helo, in mataqaanaa amar noocaas oo kale ah laga tegaya tarbiyadii xaaska laftigeeda, tii owlaadda ay markaa lahaayeen. ummaddii iyo ilmihii waxay ku barbaarayaan shay aan daaco ilaahay ahayn. aabbihiina wuu khasaaray, ilmihiina waxay u khasaareen calaa xaddi sawaa, si isku mid ah. sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah mar walba inuu dardaaranka ilaahay ku haya qalbiga. yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. ehelyadigii nafyaalkiina iyo ehelkiinaba naarta markaa ka ilaaliya oo ka badbaadiya. saa darteed ahmiyada keentay in zawjo saalixa ah la helo waxay noqotay xaalad noocaas ah. waxay noqotay xaaladda midda ugu qiimaha iyo wanaagga badan. saa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay mar walba in qofka la guursanayo ama inanta la guursanayo ay noqoto inan aad iyo aad u qiimo badan xagga diinta, xagga akhlaaqda, xagga aadaabta, xagga ixtiraamka, xagga fulinta xuquuqa zawjiga ah ayaa loo baahan yahay. waayo waa masrac, waa dhulbeereed. dhul beereedka mar allaala marka la beeranayo dhul fiican baa la raadsadaa. ninka lagu magacaabo abilcaas ayaa awlaaddiisii la dardaarmay. wuxuu kula dardaarmay uu yidhi, war nudfadiina ama ninka mataqaanaa wuxuu yidhi ninka naakixa ah ee guursanaya, carruurtaydiyey dhegaysta, ninka naakixa ee guursanaya waa muqtaris, waa ziraac, waa nin beer raba inuu beerto. ee qof walba iyo shaqsi walba oo idinka mid ah ha iska fiiriyo meesha uu abuurkiisa ku ridanayo, meesha abuurka uu ku ridanayo. waayo gabadha waa zarci sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. nisaa'ukum xarthun lakum, waa beero oo kale buu yidhi ilah subxaana wa tacaala.
nisaa'ukum xarthun lakum waa beero fa'tuu xarhakum ana shi'tum saa darteed buu ilaahay ku tilmaamay inanta inay beer tahay. war haddaan beer jirin waa la baaba'ayaa, war haddaan beer jirin waa la baahanayaa, war haddaan beer jirin waa la gaajoonayaa, war haddaan beer jirin waxba ma jira meesha. waxa adduunkao dhan fiiri, waxa ugu qiimaha badan ee ugu wanaagsan maxay tahay? waa beeraha. sidaa darteed ayaa duwalka gobolka mid ah ayagoo dhulkooda waxba aan ka bixin oo waxba aan ku samaynin iyay beeraha ku dadaalayaan, zaraaca lagu dadaalayaa. ilaan waxa ugu qiimaha badan waa waxa ilaahay dhulka ka soo bixiya subxaana wa tacaala. maca daalikaba xaaskii waxaa lagu tilmaamay inay beer tahay. beertu maxay tahay? maxay u noqotay beer? waxay u noqotay, waxay soo saaraysaa injaab, dadka ayay kaafinaysaa, guriga oo dhan ayadaa iftiiminaysaa. fiiri guryaha iskaabulaha iyo guryaha sawjka ah ee xaasaska ah. wiilka iskaabulaha ma aragteen? iskaabula waa ninkaan naagta lahayn. caawo dhan buu saa u meeraysanayaa, caawo dhan buu saa magaalada ugu meeraysanayaa. albaabka markuu saa usoo furo tafash uu taagaya isagoo dhanba. sariirtii waa isku dardarsan tahay, galaaskii uu shaaha ku cabay geeskaasuu yaalaa, waa wasaq weli. iishak maxaan dhahaa, asagoo dhan si kale surwaalkii halkaasuu ku tuuran yahay. macnaha waa xayaato aan xayaato fiican ahayn, waa xayaataan wanaagsanayn, waa xayaato aan qiimo lahayn. haddaynan inani jirin oo ay xaas guriga joogin, ninka noocaasa dhibaatuu la kulmayaa. sidaa darteed baa iskaabulaha waxaa laga yaabaa inuu ka gaari waayo inuu sariirta goglo oo sideedii uu ku jifto berin uu kaga dhaqaaqo shaqo ku aado, saa dambe uu markaa ku soo noqdo. xayaato aan qiimo lahayn, xayaato aan wanaagsanayn ayaa lagu magacaabaa xayaatada. wiilka zawjka ah ama gabadha sawjada ah see waay xaaladooda ayagana? mar allaala markaad meel dheer ka soo socotaad guriga udugiisii, waa marka guriga uu yahay guri laysku ixtiraamo, oy gabadhuna xaaladda ay rabto ahamiyaddeeda ay leedahay oo xaqa lagu leeyahay ay garanayso. gurigayoo udgaaya, gurigayoo nadiif ah, sariirtii oo goglan, wixii oo wada fresh ah, wixii oo wada wanaagsan. bal weligaa ma ku martiqaaday nin mataqaanaa casuubi ah ama iskaabula ah iyo nin xaas ah? isku wada fiiri. midka iskaabulaha wuu ku kaxaynayaa, xaguu ku geynaya mataqaanaa? makhaayad buu ku geynayaa. maqaayadii baad dhex fadhisaa, koo xaggaasuu wax ka cunaya, koo halkaasuu joogaa, dabayshii waa ku soo maraysa, dadkiibaa saa kuu soo mara, intaa laga baxaya, waxyaabo fara badan. wixii oo dhanba wax hagaagsan ma aha. iskaabulo wuu ku soo kaxaynayaa, bannaankuu kugu sheekaynaya, waa ku macsalaamaynayaa. anigoo xaas ah ka waran haddaan ku martiqaado ama aan ku casuumo, maxaan samaynayaa? marka ugu horaysa marka xaaska loo sheego oo la yidhaahdo caawa martidaasaa imaanaysa ama maanta dadkaabaa nala soo qadaynaya, qol qaasa sooma diyaariyaan dumarka? soo uunsi iyo cuud iyo waxyaabo kale laguma shido. mar allaala marka albaabka uu ka soo gelayo meel gudboon oo dadban oo waxaa la fadhiisiyaa marka hore dabayl iyo dad saas usii maraayo iyo dad saa usii maraya ma jiro. biyo marka hore ama casiiraad ah ama juus ahaa loo dhigaa, soo maaha? waa intaan qadada la gaarin. waa la ixtiraamayaa, waa la maamuusayaa. saabuuntii gacanta uu ku dhaqan lahaa, oomadii ee biyihii diiranaa, waxyaabo fara badan yaa tilmaami karada. marka laba nolol oo isku dhow ma aha, laba nolol oo kala saraysa oo kala qiimo badan waay. laakiin waa goormee? waa marka wiilka uu garto xaqa ay inanta ku hoos nool ay ku leedahay, uu ixtiraamo, ayaduna ay garato wiilka qaba xaqa uu markaa ku leeyahay. waa intaa, waa marka intaa la helo. haddii intaa la waayo soo maaha wax qiimo ah ama wanaag ah ama sharaf ah oo meesha laga gaaraya ma jiro. gurigana wuxuu noqonayaa guri jaxiimo ah oo dhibaato badan oo mashaakil fara badan markaa leh. saa darteed qofka muslimka ah waa inuu doortaa zawja saalixa ah, u dhasho awlaad lagu tarabiyeeyo taacada ilaah subxaana wa tacaala. usradaa waxay noqonaysaa usro saciida ah. usradu haddii usro saciidaa noqoto waxay kari kartaa inay ku socoto manhajka dacwada ilaahay subxaana wa tacaala ee ilaahay diinta amray subxaana wa tacaala. ahdaafta aan u noolnahay waa dacwo walaalayaal. saa darteed ayaa mar allaala marka guriga saciid uu noqdo dacwadii ay u fududaanaysaa. dadkii hore mid kasta oo soo islaama mid buu dacwada gaarsiin jiray. saasay anigu noo soo gaartay. haddii annagana aan ku socono dariiqa dadka naga dambeeyaan gaarsiinaynaa. haddaan sidaa yeelinna waxay noqonaysaa dhibaato iyo dad hadafkii loogu talagalay aan markaas samayn. walaalayaal, wiilkii gabadha markay isguursadaan, guurkuna uu u dhaco si islaami ah, waa la soo kaxaynayaa, guri baa laisku imaanayaa, soo maaha? guriga marka laiskugu yimaado, gabadhii wax allaala waxay qarinaysay oo dabeecad xun oo dhan bannaanku u soo baxaya. xaqiiq
wiilka wax kasta oo dabeecad xun uu qarinayna bannaankuu keenaya. maalmaha lays rabo iyo maalmaha laysku yimaado maxaa farqi u dhexeeya ma taqaanin. maalmaha lays rabo gabadha waxa ay jeceshahay ama wiilka uu jecel yahay bay kula hadashaa, wiilkana waxa asaga uu jecel yahay yuu gabadha kula hadlaa. cashaa loo keenaa dumarka gobol ka mid ah, hadiyooyin baa suuqa looga soo qaadaa, saacad qaali ah baa loo keenaa. war markaaba lagaa helaya maxaa lagaaga waayey markay xaaskaaga noqotay? maxaa lagaaga waayey markay xaaskaagu noqotay? waa su-aal meesha ku jirta. maxaa kalifay? waxaa kalifay ma yaqaanaba xuquuqdii sawjeenka, ma yaqaana dabeecaddu inay isbedeli doonto, ma oga inuu ilaahay yidhi. ilaahayna aayaadkiisa waxaa ka mid ah an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma. mawadada waa shahrul casalkaa loola jeedaa, waa inta laisku cusub yahay, waa inta ninka iyo naagtu ay isku cusub yihiin. waa mawado, waa naxariis. afkaa raashinka laysku geliyaa. ilahay baa u baneeyey subxaana wa tacaala. rasuulkaa ku tilmaamay macalqad raashin ah oo gacanta aad ku soo qaado oo afka xaaskaaga aad geliso in lagaa thawaabinayo. waa mawadda, waa laisjeclaanayaa. shaharku markuu dhammaado casalka ay ku magacaabeen, intaa ka bacdi cabbaar lasii joogo, xaqiiqdaa soo baxaysa. maxaa lala soo baxayaa marka? raxmo, naxariis baa laiskula noolaanayaa. hadal ay og tahay inuu qaldan yahay bay ku dhihi kartaa gabadha marka gobol ka mid ah. ha yaabin, mashaakil male, wax weyn ha u arkin, wax weyn ha u arkin. sababta waxa ay tahay raxmad baa bilaabatay. waxaa laga yaabaa mararka gobol ka mid a hadal ay ku dhahday inaad ka xanaaqdo, laakiin marka laysla socday oo weli meherka uusan dhicin, walaal ii dulqaado, war wax allaala waxaad idhahdo dul baan uleeyahay buu leeyahay. wax allaal waxaad idhahda saan baan ahay. haddaad i amarta inaan cirka iyo dhulka isku keeno waa isku keenaya, haddaad saan yeesho waan waxaynaya. haddii gabdhihii sidaasaa lagu soo xerogeliyey. war sidii kusoo xerogeli dhibaato ma jirtee, sidaa kusii wad haddana dhaqankeeda, xaalkeeda sidaa ha noqdo. ilaahay baa kaa thawaabinaya, ajirna ku siinaya subxaana wa tacaala. cumar ibni khitaab nin baa u yimid oo naagtiisa raba inuu ka dacwoodo. albaabka markuu saasoo arkay, ilan guryaheenoo kale fillooyinka iyo meelahan gabtaa ma ahayn, kor waa layska arki jira mararka gobol ka mid ah. cumar radiallahu canhu meeshaasuu fadhiyaa baa la yidhi. baafaa hortiisa yaala, waa taqaanaa bastiga baalka dharka lagu dhaqo, qamiis buu ku dhaqanayaa radiallahu canhu. saabuuntii saas ugu rugayaa. xaaskiisa geeskaasay fadhisaa, waxay soo tuuraysaa kal agtiisay kusoo dhacaysa, waa qaadaya, meel buu iska dhigayaa. waxay soo tuuraysaa kii muyga sheeg toonta iyo lagu tumi jiray, waa ku ag dhacaysaa, meeshaasuu dhigayaa. wax kastuu samaynayaa. arrintaa ayuu ku jiraa radiallahu tacaala canhu. dharkiisii asagaa mayranaya, asagaa mataqaanaa samaynaya. dhibkaasaa lagu sii haayaa. ilan waa dumar, kama aha xumaan, kama aha nacayb, kama aha waxyaabo kale, laakiin waa dabci, waa arrin ilaahay ku dabiciyey subxaana wa tacaala. ninkii intaa markuu arkayba waa iska laabtay, jawaab buu helay. jawaabtii uu raadinayay xaqiiq ahaan iyo baratical buu arkay, wuu iska noqday. cumar radiallahu canhu wuxuu yidhi ninkaa ii soo celiya, wallaahi adoonan sheegin ujeeddada aad lahayd inaadan dhaqaaqayn. naagtaan rabi buu yidhi inaan kaaga dacwoodo, dhib ba igu haysaa. adaan ku arkay amiiruulmu'miniin oo sidaa ah. war doqon ha noqonina buu yidhi, waxaan waa dumar, waa jeex, waa nus, waa naaqisaatulcaqli. dhibaato fara badan baa ku furan. xaydka wax ka dhib badan ma laha. wallaahi dumarka gobol ka mid ah madaxay ku socdaan markuu xaydka u yimaado. wax ay samaynayaan iyo wax kale ma kala yaqaanaan. raashin uma dhadhamo, wax ma u fiicnaado, wax xaalkoodu ma aha, soo taa uma dulqaataan. raashinka ee ciyaalkii dhalmadoodii iyo waxoodii oo kale waa dhib. annaga shahwaadkeenii ayaga ayay mataqaanaa dul saaran tahay, waa kulayl kale. intaasay naga hayaan oo dab oo naaray ku jiraane, makal ay nagu soo tuureen iyo war nacas yahow naga tag iyo ay ku dhaheen maa wax weyn ka dhigaysaa. nacas hadday ku dhahdo way ku ammaantay xaaskaaga, hadday waxyaabo kale kugu sheegto way ku ammaantay. waa taqdiir ay ku qadarinayso. ha u arkin dhibaato kale, wax kale ha u arkin, waayo waxbaa ku furan gabadha, mashiin baa u daaran, dhibaato fara badan baa ku sugan, waxyaabo badan baa dusheeda ah. sidaa darteed ayaa wiilka iyo gabadha markay guryaha isku yimaadaan waxaa loo baahan yahay inuu digtoonaado, ayaduna ay digtoonaato. waxaa loo baahan yahay gabadha saalixadda ah ee la doortay, ee wax allaala wixii dumar ah ee adduunkaa marayay
aad ka calfatay oo aad tiri tan waa mid allay lehe aan ilmahaygana ku aamini lahaa, reerkaygana aan ku aamini lahaa, nafteedana aan ku aamini lahaa, adigana aad tiri allay lehe ninka aan nin iiga dambaynin waa ninka noocaana. asagaaba laga yaabaaba 2 iyo 3 inuu ilaahay u baneeyey iyo 4. adigii wax laguu baneeyo kale ma jiro, adigaa kasii adag oo mataqaanaa ciriiri uga sii jira oo laga yaaba inaad dhahdo alla waa midkaan midkii aan lahaa, waa midka aad ka dooratay. saa darteed labadaas markay saasoo kale guriga isugu yimaadaan waxaa loo baahan yahay oo lagu soo baxayaa xuquuq azawjayn. xuquuqaa bilaabanaya, mid kasta kan kale xaq buu ku yeelanayaa. sidaa darteed ayaa waxaan u gelaynaa xuquuqdii sawjaynka, ninka iyo naagta isku lahaayeen. waxaanu ku hormaraynaa xaqa hooyada lagu leeyahay, waxaan ku hormaraynaa xaqa gabadha muslimadda lagu leeyahay. shalay waxaad ahayd foodley soo maaha, ama waxay yidhaahdaan dumarka ii sheeg dhoocil, ama waxay dhahaan wax noocaas oo kale ah yaad ahayd. xataa adigoo da'yar haddii lagu soo guursado waad ka baxday. foodle ma tihid, dhoocil ma tihid, waxaad noqotay gabar mas-uul ah, waxaad noqotay gabar nin maamulaysa. war ragga ma ujeedin, nin kasta oo fiican naag fiican baa ka dambaysa wallaahi. nin kastoo isxarakaynaya oo bannaanka ku jeesjeesaya oo surwaaladaa labisan oo kabaha quruxda badan xiran oo saas u soconaya magaalada yaa ka dambeeya mataqaanaa? gabar saalixad aha ka dambaysa, gabar wanaagsan baa ka dambaysa. war ragga gobol ka mid a qamiiska ku wasaqooba mana is oga, war ragga gobol ka mid ah kabaha kale noocay qaataan mana is oga. intaas waa dhibaato dumar, intaas waa naagaan saalixad ahayn. 3 qofkii lagu arsuqo waxaa lagu arsuqay shaqaawo iyo cadaab adduun iyo mid cadaab adduun. waa naag xun, waa mataqaanaa jaar xun, waa guri ciriiri ah sida rasuulku tilmaamay sal allau alayh wasalam, sida nebigu tilmaamay. soomaalidu maxay dhaheen ama mahmaahda, caalamkoo dhan oo kula dagaalama waxaa kaaga dhib badan xaaskoo kula dagaalanta. gurigoo dhibaato kaa taala, waayo adduunka dhan ha kula dagaalamo. mashriqiisii maqribkiis maxay kaa qaadayaan haddii inan aad leedahayo ku dejiso, ku ilowsiiso, ku hurdisiiso, ku caanasiiso, wax walba ku ilowsiinaysa. maxaa kaa maqan? waxba. weligood ha qayliyaano, weligood wax kasta ha sameeyaano. nin kastoo fiican naag fiican baa ka dambaysa. nin kastoo saalixa waad aragtaan oo wanaagsan kuma gaarin wanaagga kartidiisa, xaasaa joogta. waxbaa ilaahay ku arsuqay subxaana wa tacaala. 3 ninka lagu arsuqo waa sacaado adduun, gabar saalixad ah iyo jaar saalix ahoo fiican iyo guri waasica. guri waasica qolalka faraha badan ma aha. 2 qol allahayow deganaada ama 1 qol, waa guri diinta lagu oogo, waa guri walaalay iyo walaala laysdhaho. war doqon yahow iyo doqonya xaggee jirtay? war wax yahow saan ah xaggee? war waxaan yaa guursan jiray? war waxaan xaggee iga soo gashay? war ma indhahan la'aa markaan tan guursanay? guriga saasaa ciyaalka lagu dhalayaa maanta, saasaa maanta ciyaal lagu dhalaa. walaaley, alla ka cabsiga, is-ixtiraamka, hadalka fiican. markuu u yeeraya nebiga caaisha muxuu dhihi jiray? yaa xumayra tayare casey. waa hadalkan ugu fiican. magacba magaca ugu wanaagsan baa laysugu wici jiray, laakiin magacba magaca ugu xun baa maanta isugu wacnaa. magacba magaca ugu xun baa maanta laysugu wacaa. fartay iskagala hadlaa ninka inaagtiisa maanta gobol ka mid a. suulka yaa la iskala hadlayaa. markuu u wacayana suulku u wacayaa ama ciyaalku u dirayaa. waayo wuu iskala weyn yahayba gabadhii. ayadii waxay leedahay ma isagoo saana anigsaan ii geli kara? way iskala weyn tahay. haye adna isla weynow soo baaba meeshii ma aha. war aaway xuquuqaadkii, war aaway gurigii saalixa noqon lahaa, war aaway gurigii wanaagsanaan lahaa, war aaway gurigii cizada iyo waxaan lahaa. aaway hooyadaa buu leeyahay, hooyadaa aaway aabbaha ma baxay? xaaladda noocaas ah subxaanaka yaa ilaahay. war sidaa ma aha walaalayaal. war guriga waxaa loogu talagalay laysku ixtiraamo, laysku qadariyo. war gabdhaha gobolka mid ah waxaa la rabaa inay dhararaan imaashaha ninka, saacadday saas u eegta mar walba, inay saacadda saa u fiirisa mar walba. alla maxaa ku dhacay? alla si xaaladu tahay? alla maxaa soo qabsaday? ihtimaam qalbigeeda inuu ku weynaado, qalbiga ninkaaga qalbigaaga inuu ku weynaado. waayo markii qaswatu uxud ay dhacday, xamlata inay taan filaya gabar saxaabiyad ah yaa walaalkeed iyo mataqaanaa waxa lagu dilay, waa Muscab ibn Umayr xaaskiisa, waxaa lagu dilay dhowr qofood dagaalkii. markaasaa loo yimid oo la yidhi adeerkaa waa la dilay. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun bay tiri.
markaasaa layidhi aabbaha waa la dilay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. markaasaa layidhi walaalkaa waa la dilay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. ninkaagiina waa la dilay. qaalat innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wasaaxat markaasay qaylisay ay barooratay. rasuulku meel dheer buu uga jeeday sal alla alayh wasalam. wuxuu yidhi ina azawja la zawjaha, ninka naagtiisa la bimakaan buu uga yaalaa, boos buu uga yaalaa buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam. aaway xaasaskeena boos ma uga naalnaa? qalbigooda qayb ma ku leenahay? ma degannahay? waa maya. haddaan cashayni haddaan cashayn waa isugu mid, way seexan. haddaan maqnaani haddaan soo dahno waa isugu mide. furaha qaada amtaqaanaa taala meel. xaaladahaasoo dhan ayaa markaa jira. saa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga iyo dumarka mid kasta ka kale wuxuu uga dhigay libaas. hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. idinku labis baad u tihiin, ayaguna labis bay markaa idin yihiin. labis ayaad u tihiin, iyaguna labis bay idin yihiin. maanta labis layskuma aha xaqiiqda marka la fiiriyo. guryaha burburka, dhibaatada, nacalada, qaylada, mashaakilka, buuqa, dagaalka, sawaxanka, isnacalada, isharaantiga, isqaylada, ishabaarka yaala haddaad aragto waa la tacajubayaa. dadkaanaba dad islaama maba dhehaysidba. guurkaanaba guur islaam ku salaysan maba dhehaysidba. mashaakilka meesha jira adkeynta iyo weynaantu markaa leeyahay. sidaa darteed walaaleel isqadariya. gabadha muslimadda ah mar allaala markay aqalka soo gasho waa mas-uul. waxay mas-uul ka tahay nin rag ah. nin rag ayay mas-uul ka tahay. ma og tihiin raggu inay xasili waayeen oo aad idinka xasiliseen? ma og tihiin aadan markii la abuuray inuu dooqay, uu wareeray oo wax xasiliyey wax dejiye la waayey, ilaa waxaa dejiyey qof haween ah. war dumaroo meel fiican baad joogtaan. war dumaroo hool weyn baad noo haysaana ha nagu soo jeesanina. in badanna noo dulqaata. in badanna dhaqanka noo hagaajiya. in badanna waxyaabaha aad ku tabanaysaan iyo waxyaabaha kale si wanaagsan oo diiniya ugu kala baxa. saasuu ilaahay amraya subxaana wa tacaala. aadan waa la khalqay. markii la khalqay kadib uu xasili waayey yuu ilaahay xaabuu abuuray subxaana wa tacaala. yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna. xasita baa layidhi adii zawjadaadaba jannada gala. wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan eesh litaskunuu ilayha. ma nin baa xasili karaa? wallahusan kombyuutar xafiis kaga shaqayn lahayn haddayna naag jiri lahayn. wallahusan gaari uu ku wadi lahayn qad sariica ama hayweyga ilaa inay naag jirta maahane. wallahusan wax kasta isku khasi lahaa haddaysan dumar markaa jirin. haddaysan dumar jirin lee waa waxa keliya ku xasili karo. waa waxa keliya dejin karaa. waa waxa keliya hagaajin karaa. saa darteed dumarka aad guursanaysaan dumar xilkas ah oo wanaagsan ka dhiga. taasuu ilaa kheyri wanaag ku geenaya subxaana wa tacaala. xataa wuxuu ka hadlay rasuulka ridaaca. dumarka axmaqiinta ah yaynan idiin nuujinin hablihii ee ciyaalkiina. waayo waxbaa ka dhalanaya. wuxuu ku barbaarayaa cunuga uu ku caqliyooba uu ku koraa. waa radaaca, waa nugmada. sidaa darteed ayaa dumarka mar walba loo fiirsadaa. gabadha haddii kalaab laga soo guursaday maanta maxaa laisku guursadaa? waxaa laisku guursadaa markii video lasoo duubo meel aroos ah oo waddan kale la geeyo. gabar ka dhex cayaaraysay ka dhex boodboodaysa videogu ninkii arkayaa taa u calaamadaysanaya. ciddeedii buu raadinayaa. saasaa markaa guur ku dhacaa. haye gabar noocaasoo saas lagu guursaday ilaah baan idinku dhaariyay maxay noqon kartaa? ilaahan kugu dhaariya saas wax ma u kicin kartaa? iska taa qiyaam inaad u kicisa iyo witri aad la tukatee. caaisha maxiri nebiga dadab buu ayaan anigana hortiisa mutacarid baan ku ahaa. mar allaala markuu leelka dhammeeyo witriga u dhiman yahay wuxuu i dhihi jiray quumi yaa caaisha, caaishay kac fa wutiri ila witri. haye tu oo cajal ay ku boodboodaysayo inta muusig loo daaray wiil ay kula ciyaaraysay ayaad calmatay oo calafkaagii noqday. calafkaaga meel xunu galay. saa darteed ayaa waxaa intaad soo waday ma laga yaaba saas wax inaad u kiciso. weliba xadiis buu nebigu ku tilmaamay. ilaahay ha u naxariisto nin walba oo kacay oo 2 rakacadood tukaday xaaskiisii kiciyey. hadday diidana biyo qabow intuu gacanta ku soo qaaday wejiga uga rusheeyey. ayadana alxamdulilah ilaahu khayrku sii tiri ee kacday weysaysatay 2 rakacadood tukatay. sidoo kale allah u naxariista gabar kacday 2 rakacadood tukatay. sawjkeedii walaal istaag oo kac oo tuko waa waqti xasaasiya tiri. markuu hurdada isku dhejiyey aragtayna intay sacabka biyo ku soo qaaday shab wejiga uga siisay. ilaahay khayr allah ku siiya gabadhii u duceeyey ee kacay ee 2 rakacadood tukaday. ninkana daakiriinta lagu daraa, gabadhana daakiraadka lagu daraa. ma laga yaaba in saa la isku kiciyo? in iska daa in biyo wejiga laysaga shubee waxa ka dhacaya kaale arag mashaakilka habeenka
dhacaya. haddii laga yaabo ka ugu fiican markuu kiciyo dhaho istaag ee salaada subax tuko ee naga daa ay tiraahdo ka ugu fiican waxaa laga yaabaa inuu masaajidka aado, ka kalena inuu iska ag seexdaaba dhici kartaba. xaalkaas waa macnaha. saa darteed gabadha muslimadda ah ee lasoo guursaday ee guri la keensatay, walaalay ciyaalnimo iska daa, walaalay ayuutaan geli lahaa iska daa, walaalay dad fara badan baa jira oo ummadda dadka ku dira. waxaa dhici karta gabadh inaan dahab loo iibinin oo wiilku yidhaahdo walaal wax mahay gadaal aan kaaga iibina oo aan raali ku noqoto. war dumar fitno badan oo guryaha inay dumiyaan uun adduunka u joogaa jira. inta loo soo galaa walaha gabdhaha qaarkood waxaa laga taabanayaa meeshaan sadriga, walaal maxaa dhacay kii guduudka maba ku xirnee faq caawi habeenkaasoo dhan maba mataqaanaa lala hadli karaba, wax la weydiin kara ma laha. xaalkeeda waa sida fartaa wax kuma jira miya, jijin laguma iibin miya, kan laguma samayn miya. way jiraan kuwa noocaasa. hadday idiin yimaadaan jijinta iyo dahabkaba maba jecelin dhaha ta aakhiran sugaynaa. xaalku waa sida. gabadh caaqil waa inay noqoto, gabadha waa inay maskax yeelato. war waxaa la yidhahdaa shaytaan gurigaagu kaa saaraa, kiisana kuma geeyo. wallaahi dumarka saa dhahaya wallaahisan nin lahayn, wax ixtiraamo oo qadariyaysan lahayn, wallaahi wax ka dambeeyaysan lahayn. waxay rabtaa inay aqalkaaga dumiso. adaa guri leh, adaa sharaf leh, adaa qiimo leh, adaa rag leh, adaa lagaa mas-uul yahay, adaa nin gadaashiisa ka soo kacaya. markaasay isaga kaa dhigaysaaba mid ugu sarrayso ugu qiimo badan. markay kaa tagta wallahi meelay ku hooyata ma laha. 2 dahab bay haysataa iyo 2 faraati iyo hal maxaa la yidhahdaa ka gacanta la geliyo bushileeti waxyaaba la mid ah. xaaladda noocaas ah ayay dumarka gobol kamida ka shaqeeyaan. marka walaalay adiga markaad guriga imaanayso waxaad u imaadaa ilaahay dartii subxaana wa tacaala. waan soo tilmaanay hadda sababta lagu ikhtiyaartay waxay tahay inaad soo saarta wiilal iyo gabdhar xijaabta oo rukuuca oo sujuuda oo ilaahay subxaana wa tacaala dartii wax u sameeya. xaaladda noocaasaa lagu keenay. laguma keenin inaad ayuuto gasho, laguma keenin guriga in mataqaanaa dahab iyo waxyaabo kale aad ka sheekayso, laguma keenin arrimooyinka noocaas oo kale ah. waan arki doonaa markaan xaqa wiilka gaarno. hadduu hanti helo oo ilaahay wax siiyo inuu kuu gado waa muhiim, way fiican tahay. inuu dharka kaa bedelo, inuu mataqaanaa dahab kuu iibiyo, inuu waxyaabo kale ku siiyo. arrinta noocaas ah waa shay lagama maarmaan ah. haddii ilaahay wasic siiyo, hadduu ilaahay wax siiyo, layunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah. saasuu ilaahay tilmaamaya. layunfiq duu sacatin soor iyo beriis ma aha, waa inuu nafaqeeyo wax allaale waxa sacadiisa ka mid ah. aqalka wuu ka bedeli karaa. guri xun ayaad deganeed oo ciriiri ah, ilaahay baa hanti siiyey, waa inuu kaa bedelaa. ma aha dhibaatadii shalay aad ku jirto inaad ku jirto. lagu kadeedi maayo, lagu cadaadin maayo. adigaba shalay waad sabarto, wax la-aan baad ugu sabartay. maanta waa in waxi uu helay uu wax kaa siiyo, waa inuu ciriirigii kaa bixiyaa. gaari hadduu kari karo waa inuu kuu iibiyaa, dahab hadduu kari karo waa inuu kuu iibiyaa. wa amaa binicmati rabbika faxadid. ragga gobol ka mida ayaa waxaasoo dhan waxay u arkaan waxyaabo aan waajibba korkeeda ku ahayn. waxay maqleen bes waxaan adduunka waa laga saahidaa, adduunka saanaa laga dhigaa. markaasaa gabadhii baatigii loo iibiyey habeenkii arooska iyo bacweynihii habeenkii mataqaanaa la mehrinayey loo gaday weli wadataa, ay weli sidataa, oo weli mataqaanaa aan ka baabi'in oo ka baaba'ay oo dusheeda saa ku ah. maca daalika khaad buu cunayaa, maca daalika sigaar buu cabaya, maca daalika qabiil buu wax ku bixinaya, maca daalika wuxuu bixinaya waxyaabo fara badan oo aan diinta islaamka wax ku ahayn. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga wuxuu ugu talagalay nimcada ilaahay siiyey inay xusaan, wuxuu ugu talagalay nimcada ilaahay siiyey inay dumarkooda ka waxeeyaan, inay ka ixtiraamaan, inay ka ziineeyaan, inay mataqaanaa ciriiriga uga bixiyaan. xaaladda noocaas waa shay muhiim ah oo ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. maxaa ku filan qofka dembi inuu dayaco dadka xaqa quudkooda korkiisa xaquu markaa ku yahay. haddaba saa darteed gabadhaan weli la hadlayaa guriga la keenay. sababta aan aad ula hadlayo xuquuqaadkaan usii gudbi la-ahay waxay tahay waxaan doonayaa in gabadhu ay ogaato, waxaan doonayaa inay gabadhu ogaato in guriga loo keenay oo guriga loo keensayba wax aad iyo aad u muhiim ah oo qadarin iyo mudnaan ah. waayo ninkan wuu baxayaa, ninkan wuu maqnaanayaa, ilmihiisii baa lagugu aaminayaa, hantidiisaa lagugu aaminayaa, asagoo dhan baa isaga kaa aaminay. xaaladda noocaas marka waa inaad ogaataa ilaahay idinkii insha allahu tacaala. gabadha marka muslimadda markay arrintaa ogaato, xaqa ugu horeeya ee ugu weyn ee maanta laisku mari la-ah maxay tahay? waa wujuubu taaca. in taaco ay waajib ku tahay inay ogaato, ninkaas inay ateecdo.
wax allaala waxaan macaasi ilaahay ahayn, wax allaala waxaan macaasi ilaahay ahayn waa lagu adeecayaa. maanta waa midda laysaga hor imaanayo. ayaduna waxay doonaysaa inay aroos aado, asagana ilmaha uu celiyo. sababaa dadkeena yurub jooga asagana wuxuu doonayaa inuu shaqadii ka yimaado oo xaaskiisa uu la istimtaaco, xaaskiisa iyo ciyaalkiisa uu dhex joogo. taasuu markaa jecel yahay. waxaan maqlay sida 8 ama 10 loo baxo yaa laga imaanayaa salaada subax marka la aadaamayo. maskiinka maantao dhan buu shaqaynayey. markuu maantao dhan shaqaynayey, caaboo dhan ciyaal buu kuu haayay. berita haddana wuu kalahayaa, berita haddana wuxuu aadayaa shaqadii. aabay ujeeddadii laguu soo guursaday? ma inaad soo boodbooddo caawo dhanoo gabar iyo wiil isguursanayo aad ka soo dhex shaqayso? maxaad ka helaysaa? war maxaa ajirka aad ka helayso? war muxuu yahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa siinayo? war maxay tahay waxa adiga aad u soo sheegayso laga bilaabo 10 habeennimo ilaa iyo 6 subaxnimo marka la gaaro, oo meesha aad jirto, oo meesha aad joogto, oo adoo tafash ah, adoon socon karin, adoon far dhaqaajin karin, adoon ciyaalkaaga qabsan karin, adoon ciyaalkaaga caano siin karin aad imaanayso? ma xaq lidinku leeyahaya? ma xuquuqaadkaa saas noqday? ma ilaahay subxaana wa tacaala ba arrintaa idinkala dardaarmay? waa maya. war haddaad aroos aadaysaan laydinma diidana, oo dhaqso tagoo dhaqso ka soo laabta. war arooska intaa la joogayo muxuu xaalkiisu yahay? arrinta noocaasa ka waantooba. ilaahayna ka cabsada dumarka islaamka ahow. xaqa laydinku leeyahayna sidaa ma aha. saa darteed waa in lays ateecaa, khaasatan ninka waa in la ateecaa. alrijaalu qawaamuuna cala annisaa. ragga dumarka ayagaa qawaam u ah, ayagaa saytareeya. maxay uga sarreeyaan oo qawaam ay ku yihiin? waa bimaa fadala allah bacduhum calaa bacdin wa bimaa anfaquu min amwaalihim. waa fadliga iyo karaamada ilaahay ragga siiyey. fadligan ma aha fadliga xagga taqwada. gabadha iyo wiilka labadooda kii alla ka cabsi badan baa ilaahay u dhow oo sarreeya. laakiin kamaalkan la tilmaamayo iyo fadligan waa caqliga, waa garaadka, waa xoogga, waa kartida, waa maskaxda, waa dulqaadka. kaasaa loola jeedaa. ilan waa laga xoog badan yahay, waa laga maskax badan yahay, waa laga caqli badan yahay. xaaladahaasoo dhan buu ilaahay tilmaamay subxaana watacaala. bimaa fadala allah bacduhum calaa bacdin iyo wa bimaa anfaquu min amwaalihim. gabadha markay ku biisho waa dhib, say ku ateecda way adag tahay. saa darteed buu rasuulku oran jiray sala allahu calayh wasalam, dumarka hantiha ku raacina, xoolaha ku raacina. gabdhaha nin allaala ninkii xoola ku raaca way weynaanaysaa, macnaha waxay la imaanaysaa tuqyaan, waxay la imaanaysaa mutakabirnimo. sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay ragga inay ayaga saytareeyaan oo ay waxbixinta sameeyaan. waa wax lagugu adeeci karo. laakiin markay ayadu baxdo foylya baaga lacageed saxiixdo oo ay kiradiina kaa bixiso, ay surwaalkaaga iibiso, sida gabdhaha gobol ka mida qaadkii sigaarkan ayagaa iibiyey oo xaalka uu sidaa yahay, istaag haddii ku dhahda waa inaad istaagtaa. marka fariis markay ku dhahda waa inaad fadhiisataa. ciyaalka caanaha u qasyaa, sidaa yeelayaa, sokorta ha uga badinayaa markay ku dhahdana waa inaad ogolaataa. lee wixii lagugu adeeci lahaa iyo wixii lagugu samayn lahaa oo wixii dumarka ay kugu adeeci lahaayeen baa ayaga markaa u wareegay. ilaahay been ma sheegin. wa bimaa anfaquu min amwaalihim. maalka ay ku nafaqaynayaan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. sidaa darteed dumarka hantidooda inta layska ilaalin kara waa in layska ilaaliyaa. waa in koodana aad u dhaaftaa, kaagan aad ugu dartaa. inta badan maxaa laysku laayaa ragga? khaasatan in badan haddaan idinla hadlo dadkiina banaayaha ku maqan, maxaa laysku laayaa? lacagta gaalada ay ka timaan soomaa sabreed maa la yidhahdaa, maaqan waxyaabaha kale. waxa laysku furo, waxa laysku dhibaateeyo, waxa laysku maakileeyo. hooyadii baa loo diraa iyo hooyaday baa loo diraya, aabahii baa loo diraya, aabaha baa loo diraya. intay ka dhacday anaa xaqu leh, anaa iri, ninka wuu ifuray may dhihin, anaa iri, anaa saxiixay, anaa kana. xaalkaasaa dhibaatada keenay. guri islaam saa ma loogu talagelin. guri islaam saa looguma talagelin. sidaa darteed baa gabdhaha muslimaadka waxaan in badan u dardaarmayaa walaalayaal, waxaan waa adduun. maanta adduun baa la joogaa. ninkaaga ogow waa jannadaada ama naartaada, jannadaadii ama naartaada. gabar walba oo dhimata buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam, gabar walba oo dhimata zawjkeedana uu raali ka yahay sala allahu calayh wasalam. si fiican u dhagaysta. zawjkeedana uu raali u yahay, jannada ilaahayay gelaysaa subxaana wa tacaala. jannada ilaahay ayay gelaysaa. iska ateeca walaalayaal. wixii macaasi ilaahay waa gooni. waxaan adduunka waa laysku ateecaa. war adduun iyo ummad iyo dowladi kala dambayn bay ku sugan tahay. guri hadduusan kala dambayn jirin burbur buu u dhow yahay. hala kala dambeeyo.
halas ixtiraamo. hadhow anigana wiilasha waan la hadli doonaa. burjawaasinimo iyo tigtatoorinimo ma aha waxyaabaha, laakiin gabadha muslimadda ahay adaan caawa kula hadlayaaye adeec, oo ilaahay subxaanahu watacaala baa ku amray. ilaahay baa ku amray subxaanahu watacaala in amarka looga dambeeya ragga, wa bimaa anfaquu min amwaalihim. intaa wixii ka dambeeya gabadha muslimadda ah ee ilaahay subxaana watacaala diintii iimaanka ku manaystay, waxaa lagama maarmaan ah inay ninka u samirto. maxay kugu samraysaa? gacan tabardari hadday timaado. maxaad ugu sabraysaa? waxyaaba hadday yimaadaan. ilaan adduunkan maalinta waa la haystaa, maalinna waa la waayaa. maalinta la helo haddii ninkaagii noqdo, maalinta la waayana aad talaaq codsato, ada laftigeeda dhibaatadeeday leedahay. gabdhihii saxaabiyaadka ah aad bay u sabreen, waxay ku sabri jireen ciriiri iyo dhibaato. ninka lagu magacaabo Sacad ibnu Cumayr, mar allaala markii cumar uu u yeeray ee cumar uu u yimid, maxaa la siiyey? waxaa la siiyey 60 suus oo badar ah ama shaciir ah iyo 2 maro. 2 maro. u fiiriya qisada cajiibkeeda. qaado ayuu yidhi. saciid muxuu yidhi, ama Sacad ibnu Cumayr wuxuu yidhi, aniga 60 suun ee badarkaa ma qaadanayo. sababtu waxay tahay 2 koon baan cidda uga soo tegay buu yidhi. 2 koonbu cimri aan ku cunno ilaahay hana siiyo, inta aan sii cunaynana ilaahayna nama mooga subxaana watacaala. laakiin 2 maro waan kaa qaadaa. 2 maro cumar waan kaa qaadayaa. xaaskeygaan u geynaa buu yidhi. fulaana waa xaaskiisa. maraday qabtaa ku caddaaday, maradii ay qabtaa ku go'go'day, maradii ay qabtaa waxay ku bedelata ay la'dahay. cumaro waan kaa qaadayaa, 2 maro xaaskan u geyna. ama soortan soo maaha iyo badarkan aniga ma rabi buu yidhi. ilahay baana deeqaya subxaana watacaala. way u sabraysaa, way joogtaa, way mtaqaanaa degan tahay. xaaladdu waa sidaa. dhibaatadaa waxay og tahay adduunka si kastoo loo dhibaatoodo, daarta aakhiro tilka daaru alaakhirati najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi walaa fasaadan waalcaaqibatu lilmuttaqiin. daarta aakhira waxaan u samaynay buu yidhi ilaahay, liladiina laa yuriiduuna culuwan, dadka culwi iyo isqaadqaad iyo iskorkoryeel iyo aan markaa doonaynin, fasaadna aan markaa rabin, caaqibadana dadka muttaqiinta markaa iska leh. walaalay, taqwada haddaad ku dadaasho ciribtasan adaa iska leh. xariirtii jannaaduu ilaahay kugu qurxinaya subxaana watacaala. dahabkii jannaad buu ilaahay kugu qurxinaya. ha iloobin, qalbigaaga geli, rabbigaa ku xirnow, ilaahay subxaana watacaala ka baq. kan adduunka haddaad heshay haddaadan helinba ha u aabayeelin. maalintaad heshana xiro, maalintaad weysana ka dhaqaaq. waxaad uga dhaqaaqaysaa wax kale oo aad u qiimo badan baa markaa kaa horeeya. marka sidaa darteed gabadha muslimadda ahay samir. 2 xaas buu nebi ismaaciil guursaday oo midba mid aabbihii ka furay. mar allaala markii aabba yimid ee la yidhi naa maxaad cuntaan, waxay ku jawaabtay oo ay tiri waxaan ku noolnahay dhib iyo rafaad iyo mashaakil. alla baahi, alla anagaa go'nay, ma anagaaba noolba dhimanay. qayle meeshii ka baxday. odayga wuu la yaabay. waa ibraahim, waa saaxiibkii ilaahi subxaana watacaala. wuxuu yidhi ninkaaga hadduu yimaado salaan iga gaarsii. guriga albaabka alwaaxa ku dheganna ha fujiyo mid kale ha ku bedelo. wuu yimid. oday baa ii yimid bay tiri, gar weyn lahoo saa io saas u yaala. muxuu ku yidhi? sidaa buu i yidhi. maxaa tiri? saabaan ugu jawaabay. muxuu kuu dardaarmay? albaabka wax ka bedel baa lagu yidhi. inti taaliqa buu yidhi, waad furan tahay, ord gurigiina aad. waad furan tahay. maxaa loo furay? ma salaad la'aana? maxaa loo furay? ma xijaab la'aana? maxaa loo furay? maya waa ashtako. ilaahay bay ka eed sheegatay subxaana watacaala. miyay oran weysay alxamdu lilah, ilaahay baa mahad iskale, dharag iyo waxaan ku jirnaa, ilaahay mahadi. miyay oran weysay xaalad noocaas oo kale ah? sheegasho ashtako, dhibaato, ilaahay ka eed sheegasho. wiilka subaxii buu baxayaa ismaaciil, duurkaasuu aadayaa, hilib buu u keenayaa, biyaa loo keenayaa, wixii bay cunaysaa, haddana way ishtakoonaysaa. tukaluu guursaday. nolosha waxba iskama bedelin. wuu yimid odaygii, muxuu kuu dardaarmay? waa la weydiiyey. nimcan ku noolnahay bay tiri. hadduu yimaado odayga iigu salaam bay tiri. albaabka alwaaxuu ku dhejiyeyna 3 musbaar ha kusii dhejiyo, macnaha sii adkeeyo catabada. markaasaa la yidhi haye maxaa mataqaanaa xaalku yahay, see xaaladdu tahay? markaasay tiri odaygaasa iimisaasna wuu ii dardaarmay. gabar wanaagsan baa taalir gurigaaga dhaqo.
marka dumarow ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala. ashtakada dhibaato badan ayay leedahay, sheegashada dhibaato fara badan bay leedahay. inkastoo ragga maanta jooga rag laga sheegtay ay yihiin, wuu baxay, wuu maqan yahay, taleefonna lagama hayo, asagiina lama hayo, gacanna lagama hayo, dollarna lagama hayo, dadnin lagama hayo, wax laga hayaa ma jiro. gadaal baan ka hadli doonaa haddii ilaah idmo subxaana wa tacaala. laakiin idinka xaqa laydinku leeyahay ka soo baxa. idinka ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa khayr iyo wanaag ka horumarsada. rasuulku wuxuu yidhi dumar waxaa u khayr badan midda marka la eega ku farax gelisaa. khayru nisaa, waxaa u fiican dumar midda markaad eegtana ku farax gelisaa. marka aad amartana amarkaaga qaadataa, marka aad maqan tahayna nafteeda iyo maalkaaga ilaalisa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. markaad saa u fiiriso inaad ka jeesato wallahi ku qaban mayso gabdhaha gobol ka mid ah, xaasaska gobol ka mid aan dhihi lahaa. ninkeeda markuu saas u eego, subxaanaka yaa rabbi. sidaa darteed athar baa tilmaanta markay saas isku eegaan oo ay in badan is eegaan, naxariis inay kusoo daadanayso. naxariistii ilaahay waa la kala jeestaa baante. ilan saaga dhana waxaa laisku dagaalay kunkii ceerta lagu soo qaaday. shalay dhan baa laisdagaalayay, darad baa laisku qabsaday, saa anaa yeelaya iyo saa anaa yeelaya. ninkiina barkintiisa waa dhinacaa midig buu u jeedaa, ayadana bidix bay u jeedaa. bal sida uu ilaahay u hadlaya fiiriya subxaana wa tacaala. sidaa darteed buu xadiis kale ku yidhi nebiga sal allau alayh wasalam, gabar walba oo shanteeda salaadood tukata oo muslimad ah, ee ramadaankana soonta, ninkeedana adeecda, farjigeedana ilaalisa, 8 jana albaabeed inta loo ballaqala dhahaa, teed doonaysaa, teed ka galaysaa, warteed rabtaa. idan weji bashaashnimona lagu qaabila ragga waa xaq lagu leeyahay gabadha muslimadda ah. weji fiicanoo furfuran, war wiilka ha soo hiloobo. ragga laga yaabo dumarka labaad guursanaya waxaa kalifi karaa adiga. waad ka celin kartaa jaanib kasta haddaad ka qanciso, jaanib walka aad maqsuud kaga dhigto. muxuu kaga baahan gabar kalaba? laakiin mar allaala marka gurigaaga wasaq yahay, marka xilliga oo jiifka la gaaro aad ilmaha caano siinteeda aadaysid, mar allaala marka labin asaga loo sheekay aad jikada gelaysid oo aad hilibkii waxyaaba gogoyn aad gelayso, marka waxyaaba imaanaya ukhti. saa darteed walaalayaal, in badan fiiriya oo aad iyo aad u dadaala in allaala inta aad dadaali kartaan. kalsoonaanta, weji bashaashnimada waa xaaladda ugu muhiimsan ee ilaahay subxaana wa tacaala sawjeenka uu dhex yeelo. weji furfuran. maxaa loo ogolaaday mataqaanin? wiilka salaada cishaa'iga kadib in la seexda ayaa nabigu u tilmaamay. in la hadlaa mamnuuca ilaa dadka wacdi iyo diin isku sheegaya maahane, ilaa marti kuu timid oo aad u sheekaynaysa maahane. ta saddexaad mataqaaniin waa ninka naagtiisa sheekada uu u sheekeeyo iyo gabadha sheekada ay ninkeeda u sheekayto. inaana kala dharkin baa la rabaa. alla sidii laysku dhahayo maantoo dhan layskugu dhiidhiibaya sheekada. waxaa la rabaa waqti la hurdayba in la garan waayo, waqti la hordayba in la garan waayo. sidaa darteed baa guriga qiimihiisa iyo wanaagiisa iyo sharaftiisai arrintaa ku jirtaa. guryaheenii maanta nalal kasta waa lagu dhajiyey, guryaheenii maanta alaab kasta waa la keenay. sariirtaan ku seexanayn waa sariir jiirooni ah, joodariga saaran subxaana allah, haddaan salaad subax kacno waayaba iska daaliil inaan u kacnee. suulida iska daa, waxaad moodaysaa qolkii fadhiga, hadda ka horaan tilmaannay. maca daalika waa la dhaqmi la'yahay. maxaa kalifay? waa la dhaqmi la'yahay. caw ayaa kor ka saarneyd baa la yidhi saxaabada gurigooda. roobka markuu yimaado wuu soo daadanayaa. nebi maxamed gurigiisa joodariyaa yeelay, caloosha liif baa laga geliyey, qumbe. maca daalika kaalay sida loo dhaqmaya arag, sida qayla la-aanta arag, gurya la-aanta arag. walaal iyo walaalo ayaa layskula hadlayaa, akhii iyo ukhti ayaa layskula hadlayaa. maanta berit wixii lagu quraacan lahaa guriga ma yaalo, annagana tallaagadaa noo buuxda. allow yaa qof kasta caaw inta gurigiisa taga fiiriya talada waxa ku jira. walaa jikin aan ka maqnayn, walaa samaaki baan ka maqnayn ama kalluun, walaa hilib aan ka maqnayn. mise been baan sheegaynaa ilaa in yar maahane. maca daalika waa la dhaqmi la'yahay. maca daalika ninkii wax xariisan yahay oo gafuurkuu taagaya, inantii la hadli maayo. ayadii meeshaasay la xanaaqsan tahay, gabadhii meeshaasay ka xanaaqsan tahay, wiilkii meeshaasuu ka xanaaqsan yahay. ma taqaanin sababta, ma naqaano habka laysku dhaqmo. waa nin kasta waa la guursadaa buu maqlay, waa laisguursaday, waa la guursadaa bes. alla qaaligii aaway wax isku meherin lahaa, meeqa waay meherkaaga? waa intaa dhag waa la kala meheriyey. saasaa guriga lagu yimid. maca daalika lama yaqaano see laysugu dulqaataa. maxaa xaqo ani laygu leeyahay ma garanayo. maskiintan hoosteeda ku nool maxaa xaqa igu leedahay ma aqaano. wiilkan isoo guursaday ee guriga yimid muxuu xaq igu leeyahay ma taqaana. inantii muslimadda ahayd, dhibka meesha ka jira waa dhib aad iyo aad u weyn. dhibka meesha ka jira waa dhib aad iyo aad u adag, waa dhib aad iyo aad u adag. sidaa darteed ayaa wiil kasta oo muslim ah gadaalanka arki doonaaye, gabdhaha muslimaadka ah bashaashnimo la imaada.
firfircooni la imaada, war daxig iyo qosol iska keena xataa hadduusan idin haynin. raggaa lagu soo jiitaa. ragga rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay mar allaala markii la tilmaamahay nin xaasim ah oo go-aan fiican leh oo go-aan sare leh, laakiin ay naagi ka adkaan karto xaaladaasaa markaa lagu tilmaamay. marka sidaa darteed taasna waa xaq kale oo gabadha muslimada lagu leeyahay. arrimaha kale waxaa ka mid a tamkiin azawj min alistimtaac, inay suuragal noqoto sawjka inuu ku istimtaaco xaaskiisa. maxaa loo guursaday? addunya mataac wa khayru lmataac almar'atu asaalixa. adduunkoo idil waa mataac buu dhahay nebiga sal alla alayh wasalam. adduunkoo dhan waa raaxo, laakiin raaxadiisa waxaa u khayr badan hal gabaroo saalixadu ilaahay kaa siiya subxaana wa tacaala. walaa xoolo, walaa dahab, walaa wax kale, hal gabaroo cajiib leh. subxaanaka yaa ilaah. markay kula hadlaysa hoos eegaysa, mar allaala markaad amarta isla markii amarka qaadanaysa. markaad aqalka usoo gasho ayadoo sujuudsan baad usoo gelaysaa, ayadoo qur-aan akhrinaysaad usoo gelaysaa, ayadoo ilmaha weylilukulli iyo tabad meelaha ay marayaan u meerinaysaad usoo gelaysaa. mar'a saalixa faasaalixaatun qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah, sida ilaahay u ammaanay subxaana wa tacaala. alla yaa taa heli kara? alla xaggay ku jirtaa? alla xaggee laga heli karaa maanta? say xaaladdu tahay? saa haddii la helo oo arrintaa ay dhacdo oo arrintaa mataqaanaa hirgasho, guriga waa lagu guulaysanayaa. sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam, gabar kasta oo ninkeeda u yeerta, uguna yeerta firaashka waa jiifka, oo xaaladiisu ay noqoto asagoo ka doonaya nafteeda oo ay diido, habeenkaa way baryaysaa isagoo khadbaana uu baryo, malaa'igtaa lacanadaysa ilaa ay ka waabariisato. riwaayad kale ilaa ay ka raali geliso. riwaayad kale macbuudka samada ku jira saaqid u ah oo u caraysan ilaa ay ka raali gelisa buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. war gabari hadday ninkeeda uu u yeerto, firaashka uu ugu wacdo, ha ajiibto wa in kaanat cala tanuur, jika muufadaba ha ku jirta buu dhahay nebiga. cajiin bay dhajisay, tinaarkii xabad muufa ku dhajisay, iyadoo ka soo bixin rabtuu u yeeray, ha gubta muufada, ka tag, waajib baa yimid soo maaha, ha iska gubta xabaddaa muufaa, dhib ma laha. saa darteed buu rasuulku leeyahy wain kaanat cala tanuur. riwaayad kale waxay tiri wain kaanat calaa dahri qatbin, rati dhabarkiisa qolaa ku fasirtay. qolaa waxay ku fasireen dumarku marka ay dhalayaan geed waxaa jira saa loogu fadhiisiyo lugaha, xataa hadday meesha saaran tahay buu dhahay rasuulka sala allahu alayh wasalam. qolaakaa ku fasiray macnaha xaqa gabadha lagu leeyahay weynaantiisa. markii muslimiinta ay bannaanyada aadeen oo ay soo laabteen, waxay yidhaahdeen rasuulka allow faris iyo ruum iyo xabashaanu soo aragnay, boqoradooda waa loo sujuudaa, waa faajiriin, waa mujrimiin, waa mushrikiin, waa gaalo, haddana waa loo sujuudaa. wallaahi anta axaq, adigaa ku xaqnimo badan rasuulka ilaahayow, adigaa ku xaqnimo badan inaan kuu sujuudnay, ma kuu sujuudnaa buu dhahay rasuulka sal alla alayh wasalam. ayay ku dhaheen saxaabada, wallaahi haddaan axad amri lahaa inuu axad kale u sujuudo, gabadhaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuuddo buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. inay ninkeeda u sujuudaan amri lahaa. hor intaa in ka badan ma ladin tilmaami karaa xuquuqaad? war xaqee ka weyn sujuud oo ilaahay mutaystay subxaanahu wa tacaala. axad kale haddii ay dhici lahayd inuu lahaan lahaa, gabadha lama dhihi lahayn hooyaa 9 bil iisu ku soo waday u sujuud, lama oran lahayn aabba iskuulkaagii waxaagii caanahaaga qabay u sujuud, lama dhihi lahayn walaalkaa a kula dhasho ku cisaamin jiray oo ku ilaalin jiray u sujuud, intaba lama dhihi lahayn buu yidhi. laakiin gabadha waxaan amri lahaa la amartu lmar'a inay zawjkeeda u sujuudo ayaan amri lahaa buu dhahay rasuulka sal alla alay wasalam. ee ha ii sujuudina, waa mamnuuc sujuud qof bani aadama qof kale inuu u sujuudo. low ay dhici lahaydna gabadhaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo. waa xaqa lagu leeyahay weynaantiisa. maxay ka yaqaanaan dumarka maanta jooga xaqa noocaas ah? maxay xaalkoodu yahay gabdhaha noocaas oo kale ah? waa maya. sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay ninka in la ixtiraamo, waxaa loo baahan in la qadariyo, in raganimadiisa la muujiyo, in keyrkiisa la muujiyo, inaad dadka ka sharifto odaygaaga, inuu ninka ugu sarreeya uu yahay aad ogaato, in guriga mar allaala marka uu soo galo ciyaalka aad ka aamusiso, tixsiga aad bannaanka uga saarto, qaylada iyo shanqarta aad u diido, wax walbo istiraaxa uu heli kara inaad u samayso. gabdhaha muslimaadka saa waa hawl ilaahay idiin diray.
waa shaqo idinka laydinkugu talagalay, idinka mooye cid kaloo samayn kara malaha. haddii qadaamad loo keenay, haddii jaariyad loo keenay, haddii tu shaqaysa loo keenay iyo kumaankun haddii loo keeno, wallahi aysan xasilin karin ilaa adiga mooyaane, ilaa adiga maahane, ilaa gabadha uu qabo mooyaane. sidaa darteed ayaa gabadha muslimaddaa saa loogu talagalay. arrintaasuu ilaah ugu talagalay subxaana wa tacaala. waa in suuro gashaa istimtaac, waa inuu ninku shahwo gudan karaa, waa inuu mataqaanaa uu ku degi karaa. sababta waxay tahay walaalayaal, maanta fitanta jirta aad bay u badan tahay. banaanka marka la baxo gabdhihiio dharla baa taagan, soo maaha? haddii dhinacan loo jeesto waa sida. waxaa run noqotay shaytaanka markuu dhahayay uma la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin. soo balan ma qaadin shaytaan, horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix baan uga imaan doonaa. gabadha markay maanta kaa hor timaado qaawan, midig haddaad ka fiiriso saa u jeesad tu kala taagan, bidix u cararba tu kalaa taagan, ka jeesaba tu kalaa taagan. subxaanaka yaa ilaahay, meeshaasaa lagu jiraa. dhibaatadaasaa raggu ay ku dhex sugan yihiin. marka sidaa darteed waa in la helaa arrin gaabisa, arrintaa ka qancisa, arrintaa ka hortagta. yaa macshar ashabaab man istataaca minkum ulbaa'a falyatazawaj buu dhahay nebiga. war ninkii baa awoodi kara ha guursado, waayo guurka indhuhu laabaa, farjigana wuu ilaaliyaa. qofka aan keri karin ha iska soomo, farjiguu ilaalinayaa, indhahana waa laabayaa. maanta markuu gabadha mtaqaanaa xaaskiisa ah intuu salaada casir salaada subax tugtay, ilaahay subxaana wa tacaala baa u baneeyey waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim, sawjaadkooda mooyaane. mar allaala markii ilaahay sidii uu ugu talagalay ay wax u qabsadaan oo asaga uu shabacaan noqduu dhargo, akhlaaqdii gabadhuu ka dhargay, raashinkeedii macaantiisii buu ka dhargay, wuxuu ka dhargay hadalkeedii fiicnaa, waxa uu ka dhargay nafteedii, waa uu meeftay, salaadii casir buu tukaday, waa uu labistay, bannaankaasuu baxay. muxuu wax uga baahan yahay walaalayaal? muxuu u baahan yahay oo kale? yaa arrintaas suurageliyey? gabar muslimad ah. yaa arrintaas suurageliyey oo sameeyey? gabar fiican. saa darteed baa firaashka waxyaabaha ugu badan ee laysaga hor yimaado asagana uu markaa ka mid yahay. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan ajir fara badan uu ka siiyaa. wa fii budci axadikum sadaqa, axadkiin galmooshadiisa uu u galmooda xaaskiisa waa sadaquu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. nebigoo magaalada maraaya ayaa soo baxay, wuu soo galay, xaaskiisii oo dirin falkinaysuu dhahay iska dhig. markaasuu ka dangutay. markuu ka dangutay ayuu yidhi ninkiinii bannaanka baxa oo gabar arka oo ay cajab geliso oo hamigii sii kaco, xaaskiisa ha u yimaada buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ha ka xaaja guda, bidciga waa isku mid. gabadhaa waxay tahay midaan tahay, saasuu markaa leeyahay. war wiilkii dhallinyaro ah maanta oo aan guursanin ee inta bannaanka baxo dhibaatadaa la kulmo, gurigiisa waa iskaabulo, waxaa yaala hal sariir iyo buuggii ingiliishka uu ka baranayay, koobkii iyo bakeerigii wax ku cabaayay, muxuu ku xaaja gutaa walaalayaal? yaa macshar ashabaab man istataaca minkum ulbaa'a falyatazawaj, ha guursado, indhuhu laabaa, farjigana waa xifdiyaa. qofkaan keri karina ha sooma buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waa inay suura gashaa hawsha noocaas ah. arrinta noocaasa ilaahay asagoo tilmaamaya wuxuu yidhi fal'aana baashiruuhunna, haddeertaan xaasaskiina u taga buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. fal'aana baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allaahu lakum, ka raadsada wuxuu ilahay idinka qoray owlaad ah. awlaad ka raadsada buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. lama dhihin ilmihii ka raadiya keliya, maa kataba allahu lakum buu dhahay ilahay, wix ilahay kaaga qoray. hadduusan ilahay nooga qorin ka waran, maka helaynaa? waa maya. ma aha marka inaan raximka ka gubno, ma aha inaan dhakhtar jeexjeexa u geyno, ma aha inaan xaaladda samayno, ma aha inaan iswaalno. waa inaan ilaahay qaldihiisii qadarkiisa ku raali noqono subxaana wa tacaala. gabdhaha muslimaadka ah, xaq noocaas ahyaan waa shay muhiim ah oo looga baahan yahay. waa arrin ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. waa arrin muhiima oo xasaasi ah. waa arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xiray ilaa ay ka raali geliso inuu ilaahay lacanadayo ama ay malaa'igtu lacanadayaan, ilaa asaga uu markaa ka raali noqdo oo markaa ay ka raali geliso. haddaba xuquuqaadka gabdhaha lagu leeyahay bacdamuu aad iyo aad u fara badan yahay, aniguna weliba kii wiilasha gaarin, kii gabdhahana aan 1 iyo 2 markaa joogin, ayaa mar kasta waxaan ku dardaarmi lahaa cushro wanaagsan, dhaqan wanaagsan. war guryihii maanta waxa laga bedelo. war gabar kastay isku dayday xataa, bal isku day, bal waxuun inaad ka bedesho. maalin walba dad baa la heshiisiiyaa, maalin walba walaalayaal
maalin walba dad baa la kala dhex galaa, waa nin inaagtiisa. lee maxaa dhacay? maxaa laydin dhex gelayaa? maxaa laydiin heshiisiinayaa? maxaa sirtiina loo ogaanayaa? maxaad tahday iyo maxaa samaysan loo dhahayaa? walaalayaal, idinka wixii naxalista dhihi maayo laysma qabanaayo, waa la isgaarayaa. dhib waa dhici karaa, mashaakil wuu imaan karaa, waa la isgaari jiray. markaan xaqa wiilasha gaaraan arki doonaa. cali bni abi taalib faadimo wuu ka xanaaqay maalin, inta uu iska baxo masaajidka jiiftay, ma dhardharbaaxin, ma garaacin, ma laadin, ma haraantinin, ma caayin, biyo kulul kuma shubin, galaaskii wuxuu watay madaxa ugama dhufanin gabadha. aayar buu iska tegey, masaajidkuu iska jiiftay. nebi moxamed baa u yimid sala allahu calayhi wasalam gurigii faaduma. calina ma joogo, waqti qoyliisuna waa la marayaa oo hergel ma ah. ka waran ninka ragga wixii gurigiisa ka bixiyey waqti ay duhurnimo taho la qabeeyey. waa waqti dhibaato badan, waa xiliyada ilaahay uu dido xataa inay ciyaalka noo soo galaan min bacdi salaati alcishaa ومن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. سدح ذا وقت حتى عيالك يركا يدين سو قراعنا بوضع إلهي سبحانه وتعالى. آبي باليرين عذيركا أو علي markaasay tiri waxoogaa waa isku dhacnayo iima soo hergelin maanta. muxuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam? iisoo raaraadiye buu dhahay, dad buu u diray. war cali meeshuu jooga hadda iisoo ogaada. wiil yar baa soo arkooyi rasuulkii allow, cali masaajidkuu hurdayaa. wallaahi masaajidkuu ugu galay rasuulka sala allahu calayhi wasalam, masaajidkuu ugu galay. cali oo maradii ka dhacday oo dhinacaanoo dhan ciid ay ka gaartay yuu nebigu ka tirtiraya sala allahu calayhi wasalam, asagoo odhanaya qum ya abaturaab, qum ya abaturaab, qum ya abaturaab. war aabbihii ciidow kac, war aabbihii ciidow kac. abaturaabba aad baan u jeclaa buu dhahay cali radia allahu tacaala canhu. waa la soo kaxiyey gurigiisa la keenay. intaa almushkila way dhammaatay. waxay soo faagfaagaysaa 3 sano ka hor dhibkii la gaarsiiyey. maanta haddii laysku dhaco oo laguu keeno oo islaax la sameeyo, maya maalintii wiilkii aan dhalayay oo hadda waa cunug socda oo mataqaanaa iskuul dhigata dugsi dhex maraya, ay leedahay maalintii aan cunugaas dhalayo saas saas yeelay, maalintii kaas aan dhalayo saas saas yeelay, maalintii subxaanaka yaa rabbi. intaha almushkila, way dhammaatay xaaladii. waxaa la yihi rasuulka laftiisa, rasuulka iyo caaisha way isku dhaceen. abubakar baa yimid, markaasay yidhaahdeen kaalena kala garsoor bal abubakarow, ilaahay ku keenaye, ani iyo gabadhaadaan isku dhacsannahay. rasuulka sala allahu calayh wasalam abubakar meeshaa lasoo fadhiisiiyey oo la yidhi uu yidhi rasuulka ilaahay kaalena kala dhexdhexaaday. intaa wixii ka dambeeyey wuxuu yidhi rasuulka, caaishay ma hadlaysaa mase ma hadlayaa? yaa dhahay nebi maxamed. macnaha dooda ma bilaabaysaa ma furanaysaa? aabbaa fadhiyee mase anaa furtaa? qul bay tiri walaa taqul ila alxaq. hadal bay tiri laakiin been ha sheegin. subxaanaka yaa rabbi. hadal bay tiri laakiin xaq mooye wax kale ha ku hadlin. abubakar intii luu rabayba waa soo istaagaye, caaishuu u tegaye, dharbaaxa la yaqaan buu ku dhuftay. ila waa gabadhiisiiye. ma rasuulkii allaad leedahay xaq ku hadal bay u yidhi. say ku dhacday inaad nebiga dhahdo walaa taqul ila alxaq? ma nebi maxamed baa been sheegaya? way soo carartay. ma bannaankay u baxday? maya. ma rasuulka aabbaheed gadaashiisay martay? maya. nebiga gadaashiisay martay. waa ninkeeda. saasaa laga rabaa ninka iyo gabadha. waa inay garan kartaa meel malja-eeda ilaa asaga mooye inuusan jirin. way soo oroday, wallahi nebi maxamed gadaashiisay martay. rasuulka abubakar gacantuu ka qabtay, markaasuu baa yaa abaabakar anagu saan kuuma wacanin, iska bax buu yidhi. anagaa waxayna dhammaysanayne, anaga dharbaax iyo qof la dharbaaxa iyo arrintayna ma ka weyn tahay. khalaas orod bax, ukhruj bax yaa abubakar. sababtu waxay tahay xaaladooda ayagaa dhammaystay. saasaa loo baahan yahay. maba dhammaadaba colkeena anaga. colka ninka iyo naagta isqaba ilaa soomaali ay tiri colna ma aha heshiisna ma aha. war haddaadan heshiis ahayn maxaad iskula joogtaan? colna ma ahan, heshiisna ma ahan. sariirta unbaa heshiis lagu yahay, inta kale soo ma aha. waa col, layslama hadlo, wax layskuma darsado, wax layskuma waxeeyo. nin iyo naagtiisaad arkaysaa warqad isku qoraaya, warqad biilka ii dhaaf, sariirtaa loo saaraya soo maaha. ninka wuu imaana akhrisanayaa, meesha uu dhigaya isagana. cunuga ayaa jiran, dhakhtar buu u baahan yahay, warqad baa lagu qorayaa, meeshaa la saaraya. wuu imaanayaa, dhakhtar hebel geey, lacagta meesha saaraya. heerkaasaa maanta la maraya. haddaanana laga bixin oo arrintaa layska daynin, mashaakilka waa sii badanayaa. xaqiiqaadka gabdhaha inta noo dhimanna mawduuca danbaanu ka dhamaystiran doonaa, ka gadaalna raggaana u geli doona.